qisadii qaybteeda saddexaad ee qabuuraha haddii aan soo gaagaabiyo waxaa dhacday habeenkii markaas seexane adiga markay tahay taqriiban 9 saac weelimo waxaa soo galay darbiga ka soo baxay ninkaas oo ah nin madow ah oo haddana gaaban oo waxaan ku dhahay culus oo buta ah ninkii ka soo baxay soo usoo xabadkoo dikiga dhahay markuu xabadka iga kor aan waaqtay markaa qayliga waarftay ninkan inuu ixoogu rabay waa irfaadiyey soo qaylinayay aan iskaaga celinaya wax imaqlooyo male musiiga afteedu jiifaa maruu mar ahayn oo anigii aan daalay oo la irfaadiyey waxaa dhacday salaadii aadaanka xabiro gurigeena iyo masaajidku waa isaarayeen aadaanka markay saas oo u maqle ninkan waa booday kii madowga ahaya oo waxa ahaa jinigii ahaa ilaan jini leh wax saas ku galaaye markuu saas u boodayaan ku dhahay anigii gacanteedii qayladeeda sida socota hal mar lee musiiga ha ku dhaco markaasay tuusugu maxaa ku daar maxaa leedahaa haddana adoo joogtay aasaan la ii galooyaa waay ninaa darbigii ka soo baxay ninkii darbigii ka soo baxay saanoo samey aniga maanta ma qaylina iska celinay gacanteedii qayladeeda midna ma maqlayni maya ma maqlayn oo inaa jabsaday meeshaan bis waaye meydkiiga laga bixinaa gurigaan eetig bulmasiibo waaye maxaa i keenay aku galaan markaas ninkan waa isa sabeen bis salaadii gurigoo ku dugtay salaad subaxa gurigoo iskaaga dugtay asida subaxay safaroo aha markaas wuxuu dhahay waa guuraynaa intaan kasoo naqanaya bis idul qadaada maadaama maan safar ahay haddaa soo noqdo waa ku guuraynaa wallaahi inaan guriga joogay inaan dhahay adoo joogta basaan la yeelay berida 10 nin taloo isoo wadanaan dhahay ninkan maba joogaya meeshaan waa ka tagaa gurigeena aada markaas waa naqataa guriga usoo naqanaa haye xaafiddaa iska imaad wax dhibee maqaw gurigeen markaa joogo wax dhibee arqabo male laakiin dhibka wuxuu imaanaa markaa gurigayga tago bas almuseegi tagoo beriyo maqnaay waa soo noqday markaa soo noqday kadib guriga soo noqday gurigii markaa soo noqday ambura igu jiro mugtahay amburkii hoos maaragtay waa sida maxaa ku tilmaamaa dooli markaa oo maro hoosteeda ku jiro yacni marada way soconay anigani korkayga saasaa loogu dhex soconaa sida wax dooli ku jiro ama maaragtay marada soo aruurinay jug markaan siiyo waa la joojinaa ma joojiye haddana meeshiisaa laga bilaabo anoo iska yaabano iska walwalay waxaa gabar oo guriga degan oo iga hooseyso anoo suuqa imaadaa is aragnay markaas cabaara anoo jaranjarada fadhiya sheekaysa markaa anday abaayo waxaa weydiinaa adiga marka xaafidaada igu horeysay markaa soo tagtay maxaa kala kulantay markaas tir wax ma kala kulmay maya qabuuraha maka cabsi jirin miyaa ani qabuura waa ka cabsi jiray dhahday laakiin tal igu raacday waa yaabay maxaa kuugu dhacay waa ani markaa imaaday meeshaan qabri waaya isdhahay tuunkii iyo yaanyadii iyo wixii fiiqa basashii qashinka waa qabana balkoonkan kuwa ay tir maalin wad balkoonka ku habeen kasta waa la yimaanaa waa lay jugdhawaa iyo abbaayaan dhahay iyada qashinay bukubtay ani waxba ma huwe maxay iga rawaana niida ka dhahay haye marka waa qaylna arxasan oo iga soo gaar arxaninkeeda wixii marka intii maqlaysay tiri male habeen walba waa lay rafaana markii dambe waxaan dhahay tiri warni waa nisaana ay haysato markaasoo ay dhahay adi maxaa samays anisaanaa sameeyey dadkan anaga waynaga hooseeyaan darisaanahay markaa farax ka qaado dhahay qashina ha ku hubin farax ka qaad subaxdii markaa kaaridna salaan haye subaxdii markaa soo kac balkoonkaa tagaa waa salaama raali hada ugu daray haye dadkii makuu imaanaya habeenkii ma soo noqdeen aan dhahay may dad ii soo galay habo dambe oo itumi mala idhaahay habeenkaasaa igu dambeeyay hadda waa bataya qashin meeshida qashin maka quubii maka daadi wax maka sameey ayagana wax kasta waa iska salaamo saas waa miyaan dhahay maxaa aragti maya bay wax ma aragti waa ku weydiinayaan dhahay aniga sideeda dadinta iyo waxaasna waaba ka cabsadaan dhahay haye niida kadhow iyo sheekadaaneeti hada kala yaalay babu ka heesanayna waaba naagtaan way soo martay miyaa dariska kalena weydii ayagana way yacni ayagana faysala kala leeday kulmeen anana hideeda ka dhahooyaa kuwaana gaalo waaye waxay ka saayaan male ka soco gurigaan imaad markaa guriga imaad labadoo beri markaan joogay uuraan yeysta ma ogaana uuranaan leeyahay gurina weli ma raadsanin laakiin musheegu wuxuu dhahay gurigaan raadsanayna waa buurana dalaalaan guri u dir afaaraasoo ii sheegay haye waxaa la ii yeelaa marka waa lay tuura gab ani ma is ogi meel walbaan ku dhacaa waxaa la ii meel hoteelaan u dhawaay hoteelka tisaan ku dhacay waxaan dhahay maxaa ku daaray dhulkan biyo ma leh maxaa u dhacday waa soo socday
haddana gurigii waa ku dhacay haddana jaranjaradii aan ku dhacay haddana guriga dhexdiisaan ku dhacay waxaan dhahay maxaa idaar maanta waa laygaga mooyaaye adilee waayo bah niidaada waaye haye niidaada waayo markasta iigu dejinaa ninkan markii dambe waxaa dhacday isbitaalaa tagnay uurkii la soo ogaaday uurkii markii la soo ogaaday ma la ogaaday haa musqusha taa waa laygu tuuraa jikada waa laygu gamaa qolka waa laygu tuuraa daashka waa laygu tuuraa meel walba suuqa dhexdiisa waa laygu tuuraa waxaan gaaray gacanta sida cunugkii camal layga qabta anoo gacanta layga wadadan waa laygamaale naftaasaa loo yaabay markii nafta loo yaabay gurigaan ku dhahay cawlama kasoo guurin gurigaan helay xaafid kale oo kastoo aad ugu fogaan soo degnay bisniyadeedu waxay ii sheegtay dhibkii ii hay wixii dhan baynoo iga dhammaaday oo meeshaan dhibkay ahaydba gurigaaneeti oo afaarihii jiniga iyo yara akhiraadkii iyo wixii badaa ka soo dheeraad inaan fiicnaado laama joogo uurkii waa soo weynaad uurkii markuu soo weyno ani waa iska fiicnay waa dhibaata ma qabi waxaa dhacday maxaa la dhahaayay in xaafidii inaa umulo umushii markaan galay xaafidda hooyaa laga geeyey xaafidda hooya markii laga geeyey marka operationaa ku dhalay cunugaa naasaan siinayaa naaska cunugaan haddaan siinayo jinigii waaya haddana naaska koluu qabanaa war abaa cunugeyga intuu ku cawooyo ninkaan intuu cawaraan dadaya heestaa habeenkii markaa jiifta naaskeyga waa la nuugooyaa qofaa cawooyo ma inii daado qof leh inay fikirta ma loo baahno inay oo maxaa la waswaas inoo galo ma loo baahno umur qofka haddii lagu maro bes waa forever qofkaaseed jira ma u ka baxayso bes waxaa dhacday quraanaa la isaaray sheekhaa la iisoo weera quraanaa la isaaray maxaa la maabal quraan oo isaaraa waxaa la yidhaha adoo quraan akhriso markaa oo seexaniisi adiga maxaa la dhaha weysaba ku seexa jirin balaa waraana haddaa soo weysa qaatataa ani musqul magalayo haa haddaa musqulga haddana bar saddexaad iyo mar afaraad waa sii jiray laakiin kuwa markaa seexana waa iska weys qaadi jiray waxaa dhacday haddana inaa oo markii oo maxaa la dhahaye caanaha kuusooda hadda caanaha aadaas bes waxaa dhacday markii dambe quraankii markii la isaaray ada xoogoo markaa soo fiicnaaday oo anigii adibilooyin guriga hooya aan joogo laakiin afaarihii naas nuujitaanka maba layga joojin jinigana waa nuujinaa cunugana waa nuujinaa waxaa dhacday gurigeygiyaa tagay marka gurigeygii markaa tagay waxaa isdhahay ani dhibkii dhan waa ku daysminaya waa fiicnaatay markaan qofu inaa naqate wixii hore dhan ha soo xasuusanay ka soco cunugii habeenkii markuu soo kocay waa ooynaa marka cunugu soo kocay waa ooyo aniga marka cunugu markaan soo kocay waa ooynaa magtahay cunugu markaan soo kocay waa ooyo anigana waa naxa haddaa soo koco oo soo fadhiisto waxaa arkaa waxaa dhan wax oo aad uu la yaabaa arkaa markaa ka iyo musayga ka iyo waxaan dhahaa fiiri soo kacbe meeshaaneeto waxaa qofaha joogo war qofkaan joogo gurigii haddaa kasoo guurnuuda qofka mugdaba soconaa ada niyadaada leba wax walba adaa niyeysana sida maxaa la cunuga bileeso meelna ha fiirinin cunuga naftarkiisa ha fiirinin cunuga naftarkiisa marmarka xaar laguu soo maraaye cunugahay hataa ha fiirinin haddoo ilaahay kuuroon yahay quraan iska akhriso haddoo qof caafimaad qabtaa tahay quraan waa akhrisan kartaa haye maantabe cunugiyaa qandha qabate adiga qandhadii mase anigana mooyilkaa soo bixiyay kankiyaa soo bixiyay quraanaa la saaray cunugiyaa quraan lagu akhrinayo anaa khaylinaa quraanka cunuga la saarayo anoo idhiwooya anahaba khaylinaa waa mana afkeygana ma isku habsamaayo waa qaylinoyaa le waaw dariishadii marka waxaa soo koray ninkii madoogaay oo gurigaas igu soo jukay jiray waxa la eg oo aad u weyn oo wejigiisana waa ka bedelan yahay laakiin waa wax madoow oo sida xawlka camal leh daaqadii dhan oo yacni kusoo gambisme meeqa saca weelnima waaye 8 saca weelnima waaye marka wixii anilay arkaayo asi wax ma arkaayo wax walbo dhibay anilay arkaayo ninkan waxuu arkaayo ma lahan markaaseed quraanka soo isaara cunuga yaraa waa abaliska seexyaadnay quraanka tufoo laygu bilaabay si quraanka laygu akhrinayo markii dambe adiga suuxi ma koowaay bil xodaa saan wax ma ku tiiray soo bax waxa ku geeray meesha quraan saaka ku geeray meeshas markaa ku geeyo waxaa laga yaabaa inaa xugo caafimaadkaaga si fiican oo fiicnaado waxaa ku weydiinaa markaa hore oo gabarta ahayd jirada maxaa jirtay oo waxaan kugu bursi jiray ma arki jirta maayo marka guriga soo tagay oo hel aqraadka dhibaato ma igu horeynin ani yacni dhibaato hore aan qawiba ma jirto dibdamba wuxuu ii yimaada qabrigii markaan daris la naqday
marna walaalkay ii imaaday marna adilaskaa soo dhigi marna haddana ninkaas fiiraha weyn ii imaaday haddana waa kana gurigii kale aan soo degana dariishadii la taagan yahay cunug haddaan nuujinaa naaska kale la qabanayo la cabaayo hadduu ilaahay kuu roon yahay oo musqashii iyo jikadii iyo markaa ku jira waa la wici jiray oo gurigaas markaa deganaa wixii dhan aan kuu sheegi jira aad beena oo malay jirtay laakiin waxaa ogaanaysaa qof hadduu qabri ku jiro yacni dad ma dulminayaad leedahay laakiin qabuuraha waa layska soo raacaa intaasoo geedaa meesha ku yaalaan geedahaas jinyaalaa degan gabadha dariska tablaaye maaragta hasaana i dhahday maalinaa weydiiye waxay idhahday aniga markii aan imaaday qashinkaa meeshaan ku qubi jira haddoo ilaahay kuurooya qashinka barkaan ku qubane tanaa iga raacatay waa ilaa iyo raaligeliya aan ka bixi laakiin aniga maxay igu haystaan ay ii bursanayaan aniga qof oo maxaa weligay salaad ma ka tegin anoo yidhi salaad bilaabay qof hadda salaadna baraayo ma ihi waxaa maqli jira jinyaalka iyo dadkaas waxay dadka dhibaan dad aan dukanayninoo taariikh salaad ama qof aanba dukaninba kabisa laakiin anigu waabu dukanooyaabe qof dukanaysaa ahay qof qur-aan akhrisanaysaa ahay maxay ana iiga rabaan ay gulminooyin ii haystaan alaa kul xal qur-aanka si la isaara xoogo bilooyin waa fiicnaada bilooyin saa u fiicnaay gurigayga haddana iska joog haddana adiga 2 sano kadib anoo haddana uur kale leh haddana waa la ii imaaday markii la ii imaaday uurkii kale waxaa la leeyahay markaan sheekada alantar wey muudimo maxaa yeelay markaan aniga waaweynaa qofweynaa naqday awjinina ma iga herooyo tasabeen qabuuraha qaybta shanaabaa maraynaa waxaan yeeshtay uurkii labaad marka aan yeeshtay waa la ii imaaday markii la ii imaaday haddii marba lay ogaado inaan uur leeyahay waa lay qabanaa waa lay jukeynaa madaxaa layga tumaa korka dhanaa layga tumaa anigan waa lay rafaadsanaa bes adi mar walba si qoraali isaaraya waxaa dhacday maantaba haweeney ahayd adiga 3 saac amalay ahayd anigana uurkii 5 bilood oo joogaa arina ii sheegaya ilmaha aabahooda anigana marka waa qosle markaan qosolkiile waaba qosolkiile ku baxay maba soo laqaninba waaba yacni qof oo waxaa maqlay intana aan jirin markaas ninkan waa i wacay waa i gadiyey gacanna ma taagay lugna ma taagay afna ma taagay bas ilmihii way furan yihiin dhaqaaq dhan ma lahan cunug yaraayo soo qaaday xabadkoo iga saaray qur-aan kaloo igu akhriyay cabaar biyo igu shushubay aniga inuu midna ma jirto iyo abaay maruu mar ahayn 5 saac markii ay maraysa saacaddan aan soo naaxay markaasoo dhahay maxaa kuu dhacay wax miigu dhahay inaan dhahay maxaa maanta na ku wacay saansida markaas waxaan dhahay wax miigu dhahay sheekada fasalka ay sheegaysay ama qoslaa la is ogaay laakiin wixii kana ka dambeeyay waxba maskaxdeeda soo qabanayso waayahay dhah bis iska seex mar kalena ha qoslin haye waa iska seexbe habeenkii markaa seexbe kii yaraayo marka dhinacayga jifaa marka abnusey ma seexanin maantana way fiirinaa le ad maxaa ku daaray maayo dhahay adid seexo ani waa soo jeedaa haye kadib waxaa dhacday haddana markii oo adi maalmihii kale dadkii way imaanayaan dadkii waxay maqleen mugtahay naagta inay uur leedahay xaafadii maba ka dheeraanayaan xaafadii joogaan aniga waa khaylinaa cunug yaraayo bursanaa adugu waa bursanaa mindiyaa qaadanaa arafaatamaa waa yaabaysaan ku dhahay markaan waxaan gaaray heer guriga qur-aan hataa inaa laga daarinba in qur-aan la akhriyo iska dhaafee qur-aanba guriga inaa laga daarin qur-aan hadaa maqlo oo cabsi iga shog aniga waa dukana laakiin afaaro kale ma jirto kitaabka meesha yaad ma soo qaban karo anigana wareer asigaa doo baxaayo maanta oo baxaa nairobi oo aadaa berina soo noqdo oo sabtiduu baxaa habeenkii oo axadda meeshaas ku maqan yahay isniinta subaxii Mombaaso jooga intii halkaas habeen intoo ka baxay laysu waa dharkayga diyaar waa anigana sii baxa gurigana sii aada aniga cunugay gacanta iska qabanayna markii oo soo noqdo anigana habeenkii oo soo noqdo subaxii anagana subaxii guriga soo gasanayna
ada markaa waaweynaad qofu inaan naqato cunugaa dhashay yacni gurguroodan badan inaa iska dhaafid oo gurigaana iska fadhisid oo kuuroon yaa abaay gurigiba haddii aan keligii aa fadhiyo waa kana waa laila joogaa waa la itaataabanaa camburkiya hoos loogu jiraa maanta dhan kabs camburka waa la aruurinaa intaa lagaa taabanaa aniga dadaaba irafaadsan wooye see guriga u jooga anoo adigiioo joogtaa blade jogta wooye haddaa anig kaligii aa joogo cajalad waxaa igu jirta daa kaligaa joogtay waaba kuu dhammaatay ilaahayba kuu darnaadee sheekadii way weynaatay marka sheekadii waxay ku weynaatay waxaa keenay aniga waa fadhiyaa ma hadlaayi ma qoslaayi wax ma dhahayi gacan ma qaadayi waa fadhiyaa hataa haddii shaahi kulaalay gacanta layga dhexgelinayo dhaqaaq dhan ma lihi ma nuucsida waxba ma samayna wuu fadhiyaku waaba istooba igu dhegeyso ma dhaqaaqaay meeshian ku xirmaa adiga duka dilisi dhulkan ku dhaca anigii warkii waa sii weynaaday xilligii dhalmadiyaa soo dhow haddii anoo oo saas u fadhiya haddaan ku dhaco cunuga calooshina ku dhintaa laga yaabaa dhib ariiriyaan galnay ilaa amarkiisa xilligii fooshaa la gaaray isbitaalkii markaa tagnay waa iska dhale alxamdulilaah markaan dhalay kadib oo aan fiicnaaday haddana xaafadeeda usoo noqday markaa xaafadeeda usoo noqday jirada maiga hereyso maxaa la dhahaa cabsida weli waa i haysaa anigina xoogo umulaan ahay adi 2 bilood meelahaasaa dhalanahay waa xaaladeeda ma fadhiso ninkiyaa markii dambe meeshaas soo istaagay meeshii soo istaagay wuxuu taagan yahay naagtaananba jeclahay naagtaan waa jeclahay markii quraanta laygu akrinay xaggaasuu istaagaa ani waa arkaa marka anile arkaya ninkaan qabo ma arkaayo wuxuu leeyahay gabadhaan waa jeclahay anaa jecel sheeko waxaan kuu sheega haa gabadhaan farax ka qaad iyo waa ninkii jiniga ahay waaya markaasaa yaa tahay intee ka imaad xaggee ka socotaa islaam maa tahay insi maa tahay waxa layla weydiinaa ninkaan wuxuu leeyahay aniga gabadhaan waa jeclahay intee ka aragtay meeshaasaan ku arkay meeshaas anaga dad oo waxay ahayd meesha maba nala joogine intee ka aragtay dadka dariskaada u malaynaya dariska adduunyo maahan dariska aakhiro waa dadkaana haystaan anag ninkan waxaan ku dhahay bismillaah iyo waa idi waaye dhar haddaan gashto armaajada haddaan dhar ka soo bixiyo korkeyga waa babarara korka dhan gaduudo inaxanaa hadduu ilaahay kuu roon yahay uunsi haddaa guriga ka daaro atar haddaa adiga dhinac walba waa layga soo xirxiray bas halka dhinac ii furana waxay tahay cunto inaan cuno bas cuntada la ii furan laakiin afaaro kale male dadku waxay dhahay waa cayishay naagtaan maxaa cayilaa maxaa waxay streskii cunoogii wixii dhan waa isku darsame waaba isku furma yaa abaay alaa ku dhaxaa markii dambe waa lay wadi sheekh aadan ali igey meel quraan saar oo nin Soomaali jooga la igey meeshii lagu quraan saaray abara lay soo quraan saaray adiga taliila lay soo siiyey adi waa soo rafaaday waa lay soo jugdhow meesha taa waa lay soo rafiday waa lay soo rafiyey ninkan waxaa la goonaa faraaka qaad hadaa muslim tahayne muslimka dad ma dhibay irdaas ka baxaa leh hadaa gaal tahayne gabadha joog waayuu dhahay waa ka baxay hay waa iga baxay markii gurigeyga aan sii socon hore ii sii raacay gurigii markaan tagay waaba ila jooga ilaahay makuu darnaaday ninkaas aad uu ii wareeriyey waa idhiba ilaa aan ka gaaro cunuga 3 aan ka dhalay saas oo ii dhibaay maroo mar ahayn naftin macday aniga dhan stress i dilay ilaahay iga reebay alxamdulilaah ilaahay markoo iga reebay laakiin qur'aana mar walba qur'aana la saari jiray mar walba qur'aana la saari maxamtu waa la isaaraa suuxi waa la isaaraa duuftu waa la isaaraa mar walba qur'aana la isaaraa si qur'aan la isaaraay oo ninkan mar walba oo ilaahay loogu xiraay ilaahaba iga reebay ilaahay markoo iga reebay laakiin sheekadii oo stoobkii yacni meeshii joog weli aan dhammaanin stoobkii igu dhagaay weli stoobka sidii igu dhagaa
haddii aan xanaaqo ilmaha wixii meesha yaalla mindi ha noqoto waxaa noqoto waa qaadanaa adiga dhinacaas kale qof iska ofdeyso wax iska qabsanayso iska bulshaawi ahoo iska sheeko badanaa iska ahag wixii dhan waa kasoo xerxerme adiga waa yaabe dal dhinaca maskaxda laii fadhiyaa culeysaa iga saaran garabka badaxa hoostiisana culeysaa iga saaran bes haddana sheekada way sii socotay aniga haddana qof kale oo qof maadaama ilmooley laska naqdo markaan haddana mar kale waa iska dhalay